wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay shaacisay in dalka Itoobiya deeq waxbarasho oo 300 arday laga helay isla markaana ay gobolada dalka u qaybisay cidii arinta danaynaysaana ay faylasha soo xareynayso waa talaabo guula waa wax wanaagsan laakiin ardayda dalku waa kala xaalad waa kala duruuf waana kala dhaqaale tusaale ahaan ardayda dugsiyada gaarka wax ka barataa waxay bixiyaan $70 ilaa $100 waxayna helaan macallimiintii dalka ugu tayada wanaagsanayd kuwa dugsiyada dawladda wax ka bartaana waxay bixiyaan $5 macallimiinta joogana macallimiin maaha tayo fara badan leh oo macallimiintii tayada lahayd dugsiyada gaarka ah ayay ka shaqeeyaan taasi waxay ku tusaysaa inaanay labada arday tartami karin taasi waxay ku tusaysaa inaanay labada arday tartami karin markay sidaasi tahay anoo si hubsiimo leh iyo taxadir leh ugu kuurgelaya xaaladda waxbarashada dalka ayaa gobolada dalka qaarkood dugsiyada ku yaalaan tagi waxay soo baxday oo xaqiiqsaday in dugsiyada dalku ay gebi ahaanba xaaladooda waxbarasho aad u liidato laga yaabana in labada sano soo socda ay xidhmaan waxa lagaga tagay ee wax ka bartaa waa ardaydii danyarka ahayd inankii aabihii askariga ahaa inankii aabihii kooliga ahaa inankii aabihii waashmaanka ahaa ardayda noocaasa ee danyarta wax ka barata tusaale ahaan wasaaradda waxbarashada 300 kiiloomitir waxa uu jiray dugsiga sare Faarax Omar way tagi kartaan fasaladiisa qayb dhan oo ka mid baa xiran taasi waxay ku tusaysaa ku baraarug la'aanta wasaaradda ma dhaliilayo faratoona ma dhaliilayo laakiin xaaladda waxbarasho ee dalku ee dugsiyada gaarka waxay u baahan tahay in si wadaniyad leh oo naxariis leh looga hawlgalo loona eego 7,000 oo macallin baa ka hawlgalay wasaaradda waxbarashada haddana dugsiyadeedii baa sidana وحالتها قف كستوي نجمدي وقياس كلام أنا عندي دنين أرضيدا بريفت سكتريسكا وحكبرتها أو يجوا إنمدي نيهين ويرديدي نيهين أو عن شعلها يون دي رجل نيو هذا مسؤولية عيد قاري سارنته لكن كو الدولة ده مسؤولية الدولة ده أي محيط سارنته wasaaradda waxaan soo jeedinayaa ardayda scholarship-ka loo dirayaa inay noqdaan kuwa dawladda ee danyarta ah 300 ugu sareysay waxay wasaaraddu sheegtay in labadii sanadood ugu dambeysay marka la eego ardaydii grade B iyo grade A ahayd la qaadayo hadday sidaasi tahay 5 sanadood ugu dambeysay ardayda dawladdu safka hore kuma jirin bay ka dhigantahay marka wasaaradda waxaan ka codsanayaa in xaaladahaasi waxbarasho ee dalka ay eegaan haddii maanta ay jirto xaalad kala kor in dad ardaydu kala koreen berrito hore sida noqon mayso tahriibku iska soo dhamaani inana baabuur cad wadan maayo inana markuu dugsiga sare ka baxo iska fadhiyi maayo nabadgelyadeenna ku jirta ummada hadday kala sarreyso hadday kala wanaagsan tahay ma noqoto ummad dawladnimada danyar difaaci weydinay dawladnimo ma noqon karto dawladnimadu waxay heel u tahay cid kasta oo muwaadina oo xaaladiisa dhaqaale aanay suuragal ka dhigay madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay in dadka danyartay dantooda ka dhaxarkan waa muhiim qoladan xisbiyada hebel baa hoolan u jawaabayna waxaan doonaynaa inaad ka hadashaan oo daliishaan oo atoosisaan waxa weeyaan waxyaabaha la wada leeyahay ee waxbarashada ka mid tahay ee nabadgelyadu ka mid tahay ee caafimaadku ka mid yahay markay sidaasi tahay haddii macallimiintii wanaagsanayd ee dugsiyada dawladda ka hawlgalayay laga dareersaday oo private sector-iski ka dareersadeen maxaa diidan saraakiisha ugu wanaagsan in berrito hore dawladda laga dareersanayo waxaynu u baahannahay in aan ummad ahaan korno oo aynu u korno si aqooni ku xidhan tahay dunidu waxay ku horumartaa waa aqoon saxaafadda oo meelaha wax laga toosiyaa
saaxiibaday waxaan leeyahay idinka ayay idinku xidhan tahay inaad xaaladaha isdulbarkan iyo mashaqooyinka isdulhuwan ee danyarteenna dalka ku haysta aad ka hadashaan dugsiyada brefatka markaad eegto islaantii hooyada ahayd ee saambuuska horteeda ku gelaysay waa la soo gebagabeeyey macmacaanlayaal bay samaysteen dhinac kale markaad ka eegto dawaarlihiyaashii way samaysteen iyaga tolaya mid ka mida maamulayaasha dugsiyada gaarkoon la yar sheekaysanaya baa waxay igu yidhi isagoo horumarkiisa siduu u horumaray iga dhigaya 40 bas baan la soo degana waa basaskii baa dana albaabka loo xidhaya mee dawladdii dadka dawladda waxaa loo baahan yahay inay ku daba gasho ay kula xisaabtanto macallimiinta dugsiyada gaarkaa jooga ee wasaaradda bayrarka ku jiray ka mushaar qaata in la isla xisaabtamaana ma xuma ballanqaadyadii ficficinaa ee xisbiga kulmiye iyo buuggii akhtarka ahaana in dib loo dhageystaa loo baahan yahay xukuumaddu dib u eegto waxaynu u ballanqaadaysa waa laga rabaa in la isla xisaabtamaana mushkilad ma aha jiilasha maanta jooga ee da'yartaabaa hil u baahan jiilashaasaa u baahan in nolol caafimaad qabto loo iftiimiyo jiilashaasaa u baahan in qabyaaladda iyo musuq maasuqa iyo eexda iyo kala qaybinta laga daayo oo wixii u dana la yeelo dhaliiliga maahay waa iga toosin waayo cid arrimaha bulshada ka hadlaysa ayaan waayay waa ta igu kaliftay inaan ka damqaday nin askari oo 4 ciyaala dhalay oo 4tii 3 ka mid dugsiga sare uga baxeen $100 qaata ayaa semester kasta jaamacadda waxa laga doonayaa $300 war $1200 ma bixin karaa ilaahay baan idinku dhaariyay markay sidaasi tahay haddii iskoolarshiyadii iyo deeqii kala duwan ee wasaaraddu heshay ay kuwa brefatkaa siinayso kan yaa u hela calanka u soo jeeda ee ciidda u soo jeeda aynu ku seexan aynu ku soo toosno waxaynu u baahannahay inaynu wadaniyadeenu ku salaysnaato war dadka liita ee danyarta